Soomaaliya waa salaamay kulli Soomaali meel kasta ay joogto ama Soomaali ay joogan waa salaama haduu leeyahay salaam 104 assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaamka bacdigeed aniga waxa la hadlaa waa abwaannimadooda Xuseen Soomaali ninka la hadlaa waa faanteen malayna marka Soomaaliyay salaamka bacdigeed horta waa tii hiiraan lagu dhamaaday waxaas wax qornaa haayeen dadkii intay dhimatay Allah u naxariisto naxariistii janna Allah ka waraabiyo taas waa tacsiyo waana wax qornaa marka mideeda kale waxaan leeyahay dadka oo maaragtay dawladda ku diidin oo dadka oo amrigooda oo aflagaadayna waa laga fiican yahay anaga Soomaali hadaan nahay dawladda federaalka anaga aan xukunto dawladda farmaajo iyo ninka liiga xas cali qeyre markaas aan xukumo dawladda ina dawladda ku diidin qeyr Allah siiyo waa noo soo gurmadeen dadkana been lagama sheego mid kale tuhir shabeelna sidoo kale marka dadka ma aragtay dawladda ku diidin oo hadda doontii gadoontay oo ma aragtay oo 25 qof watay waxaan saarnay Hirshabelle waxaan saarnay Hirshabelle saarnay marka dawladda ku diidin maadaama ay saarnaayeen dadka ku dhamaaday ay ka yahay waa goboleysiga waa dawladda ku diidin Hirshabelle oo dawladda ku diidin hogaaminaa ninka liira Maxamed Cabdi Waare marka dadka uu amriga waa in laga dambeeyaa mideed kale adiga marka hadda waxa keentay marka ina maaragtay dawladii la aflagaadeeyo ina madaxdii kale Hirshabelle la aflagaadeeyo oo la yiraahdo hadana lacagtii dawladda ku diidan waa la soo dira lacaga la soo diro dawladda 500 ay soo dirtay Puntland 500 soo dirtay baraka Hormuud milyan soo dirtay inta wax laga soo diray wixii la soo diro dhan dawladda ku diidan dawladda soo dirtay dawladda Ilaahay ku sugo dawladda Dayjirleen wax lama soo diray leen dawladana qeyr Allah siiyo Soomaali meel walba joogto qeyr Allah siiyo dadka caayda la joojiyo dawladda waxaan u sheegaa farmaajo in ninka la yiraahdo dawladda xas cali qeyre iyo ninka la yiraahdo dawladda ku diidin dawladayna oo maaragtay Hirshabelle oo Maxamed Cabdi Waare oo hogaaminaa wixii dadkii aflagaaday aniga daba joogo taas adiga xal marina raali ahaada mideeda kale tan waxa waaye dadka horta waxa loo baahan yahay inuu is aamino lacagtii ayadoo la keenay dad fiidiyoyaashii media la gala intay maqleen ay ka hadlayeen waxay ku leeyihiin anaga waxaan rabnaa in dadka loo dhiibo lacagta dadka farta laga saaro inta qada loo geeyo dadkan wax waaye oo amriga laga dambeeyo haday wax qabo waayeen hal arko horta ayadoo la gaarina telefishinadii iyo moobiladii iyo fiidiyoyaashii wixii dhamay media laga wada qaylina taas waa mamnuuc mideeda kale tan waxa waa naga Soomaali hadaan nahay dawladda mideeda kale tan waxa waa ninka liidaa Maxamed Cabdi Waare dawladda ku diiday qeyr Allah siiyo inuu horta Hirshabelle asiga oo madax ka noqdo ma bahayn maba u qalmaba ninkaas macnaha waxa waa u qalmar kan leh ninkaas waxa waa dawladda ku diidin shaqo ka fiican oo haysi jiray asaayiqiin dadkiisa wax u qabanaa ay keen waa aflagaadinay waa laga fiican yahay dadka la aflagaadin ninkaas in dawladda ku diiday Ilaahay ka soo Maxamed Cabdi Waare waa ninkii Soomaali dawladda Ilaahay ka soo macaawin sii jir waa la yaqaan hiiraan dadku macaawin sii jir waa la wada yaqaan meel walba macaawin geey jir Ilaahay ka soo dadku wanaaji jir in ummadda la aflagaadeeyma ama sharafta loogu dheelo taas midaasan leh mideeda kale to Xasan ninka liira dawladda xas cali qeyre iyo madaxweynaha farmaajo raiisul wasaaraha waa mahadsan yihiin mideeda kale tanima wuxuu ku leeyahay 500 kun oo dollar waxa soo diray ninka liira waxay soo dirtay Puntland soo dirtay okay haday soo direen walaalahay waa mahadsan yihiin qeyr Allah siiyo ayakana tanoo kale haday ku dhicilaa Ilaahay ku mirgay anaga waa sii lahayn mogta marka say Puntland 500 kun oo dollar soo dirtay oo dawladda u soo dirtay guleey oo tan Puntland ay soo dirtay lacagtay Puntland soo dirtay qiimadda ay soo dirtay dawladda qiimadda maartay Hormuud ay soo dirtay waxa dadka Soomaaliya oo meel kasta jooga ay soo direen dawladda dhiibtay Ilaahay ku soo dawladda hadeen jir lahayn wax ma la keen lahayn wax ma la dhiibi lahayn marka alxamdulillah dawladda ku diiday ma santii qeyran sugnaa insha Allah ummadii Allah aflagaadeyn mideeda kaleeto dawladda ku diiday dadkan waa dad nooc kala ugaaska dawladda ku diiday kama dambeeyaan ugaas lagu hor dhaqaaqa waligeed ma arka ugaas loo tashana la arki jiray ugaas kayn ugaas Xasan ugaas Khaliif ugaas Roob la qeyr Allah siiyo ma sha Allah ugaas hiiraan iska dhaaf Soomaali iska dhaaf ugaas muslim ugaas bil aadan waa ma sha Allah ninka la yiraahdo dawladda ku diidan waxa ku soo heray madaxda Hirshabelle ha laga dambeeyo oo la amrigayna waa iyana la dheen dawladda ku diidan wixii hadda lacag laga wixii meelaha la sheego ummadii maaragtay barakacday wixii ayadoo wax loo raadinayo wax la habayna wax la toosino lacag meel la kala balan qaado waxa leeyahay lacagta dawladda ku diiday
نقول بقى عنتها لقى صار بدلان أيضا هتكتو هرمود أيضا هتكتو هتكتو حيتها بدلان وحواي ومامول قبلات واي مامول قبلات كله هرشبه لي كوري جناي سيدا مارك يا دولة وسيستم قايتها وأمرها وضع لقى دمبي تذكر لقى دمبي دولة ديال الأفلاقات ديني هدولة كود ديال الأفلاقات ديني مرح دير شباب ديال الأفلاقات ديني دولة كود ديال لقى دمبي ساس هذه له مدة كانت دور هو من اللي عذاب هذيك هدولة كود إله آخرين اللي عذابي هدولة كود استغفرها الليلة هدولة كود إيمانك كيابها لو نقصد إيمانك يا ذي التجد استغفروا لي لها هدول كل صلاة دين دكتور إلهي كبقى بيدي أنا أسوي جلسين الجوجية وركاس لافا هدول كل أمد إلهي كان اللي إجافيني إذا كما رحدها وأنا ما عرفت نوش قينا إلهي كسكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.